السلام عليكم أصحابتا kusoo dhawaada hal daqiiqo maanta waxaynu barnaamijkeena ugu hadlaynaa Austria waa dal xiran oo ku yaala koonfurta bartamaha Yurub wuxuuna xuduud leeyahay 8 wadan oo ay ka mid yihiin Jarmalka, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Talyaaniga, Switzerland iyo Liechtenstein. Bedka guud waxaa lagu qiyaasaa 83,839 kilomitir square waxaana caasimad u ah Vienna waana magaalada ugu weyn dalkan. Sidoo kale caasimadan waxay sanadii labaad oo xiriir ah qaadatay magaalada ugu tayada fiican ee lagu noolaado caalamka. tirada dadku waxaa lagu qiyaasaa 9 milyan luqadda ay dadku hadlaan waa Jarmal diinta ay dadku haystaan waa Christian boqortooyadii hore ee Austria waxay ka mid ahayd mid ka mid ah kuwii ugu quwadda weynaa ee soo maray Yurub dalka Austria waxaa ku yaala carwada ugu weyn caalamka ee xayawaanada dalkan waxay soo iqtiraaceen slow motionka fiidiyowyada waxaana soo iqtiraaceen ninka lagu magacaabo August Masger Austria waa dal kaliya ee ku jira midowga Yurub ee aan ka mid ahayn gaashabuurta NATO dastuurka dalkan wuxuu dhigayaa inaysan ka mid noqon dadku ugu caansan ee waddankan ka soo jeeda waxaa ka mid ah Adolf Hitler, Arnold Schwarzenegger, Marko Arnautovic iyo David Alaba